kusoo dhawaada warka galabnimo calansida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo sabti ah qodobo xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah waare oo lagula heshiiyey in la siiyo 1.7 milyan oo dollar oo ah lacagta loogu talagalay cudurka caabuqa 19 waxaana siinaya Fahad Yaasiin iyo Farmaajo isla markaasina lagula heshiiyey inuusan isku soo sharaxin Hirshabelle mar kale sida calansida media hore idinku soo tabisay waxa isbuucyadii la soo dhaafay ka socda magaalada Muqdisho wada hadallo u dhaxeeyo madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyo Fahad Yaasiin oo wakiilka ay Farmaajo kulamadaasi oo dhammaantood ka dhacay xarunta hay'adda NISA ee magaalada Muqdisho ayaa ugu dambeyntii waxaa ka soo baxay is-afgarad buuxa qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay ayaa ahaa in Maxamed Cabdi Waare uusan ka qayb gelin tartanka doorasho lagu qaban doono magaalada Jowhar labada bil ee soo socota calansida media ayaa waxa ilo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen in Waare loo ballan qaaday in la siiyo lacag gaaraysa 1.7 milyan oo dollar waa haddii uu heshiiskaasi fulay lacagtaasi ayaa waxa laga soo goyn doonaa 3 milyan ee loogu talagalay shacabka ku dhaqan deegaanada Hirshabelle lacagtaasi ayaa waxa ay qayb ka tahay lacagta kaalmada ah ee bangiga adduunka ugu talagalay in lagula tacaalo dhibaatooyinka ka dhashay cudurka caabuqa 19 sidoo kale Waare ayaa waxa lagu heshiiyey inuu garab istaago qorshaha Farmaajo iyo Fahad Yaasiin ee la doonayo in lagula dagaalamo dawlad goboleedyada gaar ahaan Jubbaland iyo Puntland haddaba hadaladii uu ka jeediyay Waare shirkii maalin dhaweyd baydhabo ee lagu garbaashay Jubbaland iyo Puntland iyo shacabka reer Muqdisho waxa uu ahaa kuwa loo soo dhiibay ama laga soo dhiibay fila Soomaaliya isla markaasina Waare asigoo danihiisa fiirsanayo ayaa si xun oo u weeraray Puntland iyo Jubbaland madaxweyne Waare oo ah shakhsi hore ugu fashilmay hoggaanka dawlad goboleedka Hirshabelle ayaa waxa uu u muuqdaa mid markii saddexaad iibsaday qadiyada shacabka ku dhaqan Hirshabelle isaga oo lacag ku bedeshay danihii reer Hirshabelle si kastaba ha ahaatee haddii ay qorshahaasi ay dhab ka tahay waxa macquul ah inuusan isku soo sharaxin xilka Hirshabelle isla markaasina uu ka tanaasulo madaxweyne Farmaajo Fahad Yaasiin ayaa aad ugu xeel dheer in qofka marka hore qanciyaan markii ay sameeyaan arrintaasi kadib ay ku boodaan lacagta sida markii hore ay ku sameeyeen madaxweyne Xaaf madaxweynihii maamulka Galmudug laakiin waxa macquul ah in madaxweyne Waare uu marka hore ka hormarsado lacagtaasi kadibna uu ka tanaasulo arrimaha uu doonayo dhinaca kale Shaafi Raabi oo Kismaayo lagu aasay Axmed Madoobe oo ka qayb galay salaada janaasada madaxweynaha dawladda Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ka qayb galay aaska Allah u naxariistay gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Shaafici Raabi Kaahin labada madaxweyne ku xigeenka gudoonka baarlamaanka iyo dadweyne kala duwan ayaa sidoo kale ka qayb galay aaska marxuumka Shaafi Raabi Kaahin madaxweynaha oo warbaahinta kula hadlay goobta aaska ayaa sheegay in dagarta argagixisada ay tahay mid mudan in laga wada qayb qaato sidii looga hortagi lahaa isagoo sheegay in qof masaajid Ilaahay ka soo baxay in la dilo ay tahay mid uu ciqaabtiisa dhadhamin doono qofkii falkaasi geystay waxa uu madaxweynaha intaas ku daray in shacabka iyo mas'uuliyiinta ay u siman yihiin kooxda Al-Shabaab isagoo tusaale u soo qaatay goob ay dadweyne ku shaqaynayeen magaalada Muqdisho oo maalmo ka hor uu isku qarxiyay naftiis halige dadweyne ku shaaheynayeen magaalada Muqdisho oo maalmo ka hor uu isku qarxiyay qof naftiis hore ahay madaxweynaha ayaa shacabka reer Jubbaland iyo guud ahaan dawladda Soomaaliyeed ugu baaqay in loo midoobo dagaalka argagixisada si loo xaqiijiyo himilada shacabka Soomaaliyeed ee ah inay nabad iyo xasilooni ku noolaadaan dhinaca kale Axmed Madoobe oo amar degdeg ah bixiyay kadib qarxii shalay Kismaayo isla markaasina saraakiisha ugu sareysa Jubbaland la kulmay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe oo shalay dib ugu laabtay Kismaayo ayaa kulan gaar ah la qaatay saraakiisha amniga ee maamulkaasi Axmed Madoobe ayaa amar degdeg ah siiyay hay'adaha ammaanka ee maamulka Jubbaland isagoo faray inay kaanaan baaritaanada dhacdooyinka dhinaca amniga ah oo ugu dambeyn qarxii shalay ka dhacay Kismaayo Axmed Madoobe ayaa amar degdeg ah siiyay hay'adaha ammaanka ee maamulka Jubbaland isagoo faray inay keenaan baaritaanada dhacdooyinkii dhacay dhinaca amniga ah oo ugu dambeeyay qarxii shalay ka dhacay magaalada Kismaayo madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale amray saraakiisha ciidamada nabad sugidda iyo kuwa booliiska Kismaayo inay xoojiyaan howlgallada lagu xaqiijinayo amniga gudaha sidoo kale wuxuu saraakiisha hay'adaha ammaanka ka dhageystay warbixin la xiriirta howlgallada ka socda wadada xiriirisa magaalooyinka Kismaayo iyo Afmadow waxa kale uu ku ammaanay ciidamada huwanta dhaqaaqyada Al-Shabaab loogu saarayo gobolada Jubbooyinka ee koonfurta Soomaaliya Kismaayo oo deganeed maalmihii u dambeysay ayaa shalay gashay xaalad adag kadib qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay gudaha magaalada Kismaayo waxaana dadka ku dhintay kamid ahaa Allah u naxariistay gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland marxuum Shaafi Raabi Kaahin
xog xasaasi ah madaxweyne qoorqoor oo isku dhiibay imaaraadka islamarkaasina si qarsoodi ah kula kulmay magaalada Nairobi gaar ahaan garoonka Jomo Kenyatta islamarkaasina ka codsaday in ay malaayiin dollar ku deeqaan ay wax badan u qabtaan qoorqoor iyo saraakiisha imaaraad ahi oo kulan qarsoodi ah ku yeeshay magaalada Nairobi. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya safarkii degdega ahaa ee madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor uu shalay ugu ambabaxay magaalada Nairobi. Qoorqoor oo diyaarad gaar ah ka qaatay xamar ayaa degay hotel Four Bounty Hotel oo ku dhex yaala garoonka Jomo Kenyatta ee dalkaasi Kenya, halkaasi oo kulan kula kulmay saraakiil imaaraad u qaabilsan geeska Afrika gaar ahaan ninka lagu magacaabo Xuseen Darwish Al-Shamisi. xogta aan helayno ayaa sheegaya in Qoorqoor iyo mas'uuliyiinta imaaraadka ay ka wada hadleen arrimo ay ka mid yihiin sidii Galmudug loogu caawin lahaa dhismaha garoonka diyaaradaha Dhuusamareeb iyo sidii loo qaabin lahaa kulan dhexmara Qoorqoor iyo madaxda imaaraadka ugu sarreysa. Galmudug ayaa sidoo kale raadinaysa in taageero laga siiyo dhismaha ciidanka iyo mushaarkoodaba oo ay aad ugu baahan tahay, taasi oo imaaraadka diyaar la yahay marar badanna ay u yabooheen. si kastaba ha ahaatee saaxiibkiisa Farmaajo ama Villa Soomaaliya ayaa inta badan qarashaad badan ku bixin ciidamadaasi iyo sidii horumar u gaari lahayd Galmudug. wararka ayaa sheegaya in kulankani markii hore la qorsheynayay inuu ka dhaco Djibouti laakiin ay diideen imaaraadka carabta ayna dalbadeen inuu ka dhaco magaalada Nairobi. kulankan ayaa dhaawac xoogan gaarsiin kara xiriirka Qoorqoor iyo madaxweyne Farmaajo oo ku xiran dowladda Qatar oo ah dowlad saaxiib dowla ah dowladda federaalka Soomaaliya aadna ay u xifaaltamaan imaaraadka Qatar iyo madaxweyne Farmaajo. si kastaba ha ahaatee lama oga Villa Soomaaliya waxay ka dhihi doonto Qoorqoor oo isku dhiibay imaaraadka. wararka ayaa sheegaya in Galmudug ay ka careysan tahay in dowladda Qatar ay ka baxday ballanqaadkii dhismaha degeta Hobyo. Qatar ayaana sidoo kale wax taageero ah oo muuqda siin Galmudug iyo maamul goboleedyada kale ee dalka. dhinaca kale Xaawo Maxamed Xasan oo xabsiga laga sii daaynayo kadib kiiskii caanka ahaa ee 2011 garsoore federaal oo Mareykan ah Michael Davis ayaa Khamiistii amray in xabsiga laga sii daayo haweeney 73 jir Soomaali ah sanadii 2011 xabsiga loogu xukumay inay taageero siisay kooxda Al-Shabaab. Xaawo Maxamed Xasan ayaa qorshuhu ahaa in la sii daayo bisha Janaayo 2021 hase yeeshee garsoore David ayaa sheegay inay u qalanto in goor hore la sii daayo sababo ay ka mid yihiin xaaladaha caafimaadka oo sii xumaanaysa iyo faafinta cudurka caabuqa 19. waxa uu sheegay in Xaawo ay qabto cudurro dhowr ah oo dhiigkar uu ka mid yahay. eedeysanaha waxay ku dooday in xaaladda caafimaad ay yihiin halis muuqata oo sare u qaadi karta in nolosheeda ay halis gasho hadda uu ku dhaco cudurka caabuqa 19 ayuu yiri garsooraha. Davis ayaa sidoo kale ku doodaya inay u badan tahay inaysan dib ugu gelin dambigii hore lagu soo xiray marka la eego da'deeda. Xaawo ayaa waxa ay ku xiran tahay xabsiga Hazelton ee gobolka Virginia. Xaawo oo ah muwaadin Mareykan ah iyo Amiina Faarax Cali ayaa 2011 lagu helay dambi ah inay taageero siiyeen kooxda Al-Shabaab argagixisada iyaga oo lacag ka ururiyay magaalada Rochester ee gobolka Minnesota. Xaawo ayaa waxaa lagu xukumay 10 sano oo xabsi ah halka Amiina lagu xukumay 20 sano oo xabsi ah. kiiska Xaawo ayaa sanadkii 2011 noqday kiis aad loogu hadal hayay warbaahinta Mareykanka iyada oo la soo bandhigay codad loogu duubay telefoonka oo ku cadeynaya dambiyada lagu soo oogay. dhinaca kale maxay tahay caqabadaha mar kale dib u dhigay shirka wada tashiga ee Muqdisho. shirka wada tashiga dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada dalka oo saaka lagu waday inuu ka furmo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho ayaa mar kale dib u dhacay sida ay sheegayaan wararka soo baxaya. shirka oo ah mid xasaasi ah waxaa ballantu ahayd inuu furmo Khamiistii la soo dhaafay balse uu baaqday kadib waxaa Villa Soomaaliya ay shaacisay inuu bilaaban doono shirka 12 bisha September oo maanta ku beegan haddana uu dib u dhici doono. wararka ayaa sheegaya in dib u dhaca uu sababay safarada degdega ah ee ay galeen madaxweynayaasha maamulada Jubbaland iyo Galmudug oo shalay si degdeg ah ugu ambabaxay magaalada Muqdisho. Axmed Madoobe ayaa u duulay Kismaayo kadib qaraxii ka dhacay magaaladaasi halka Qoorqoor oo u dhoofay dalka Kenya isaga oo kula kulmay saraakiil imaaraad ahi. caqabadaha ku horgudban shirka ayaa muddooyinkii dambe sii xoogaysanayay waxaana ismari waa uu u dhexeeya dowladda dhexe Jubbaland iyo Puntland. shirweynaha oo daba socda shirkii Dhuusamareeb 3 ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa dhamaystirka heshiiskii lagu gaaray magaaladaasi iyo arrimaha doorashada. xaaladda siyaasadeed ee dalka ayaa ah weli mid cakiran waxaana haatan socda kulamo gaargaar ah oo ay yeelanayaan dhinacyada siyaasadda kuwaasi oo ka socda magaalada Muqdisho.